عارنا عبصون على نوغا اسكسارو إلا كان على نوغا عن دارنا على نوغا كان علمي ومر kale iyo dagaalkii u dhaxeeyay Ilka Case Qays iyo Sharma Boy waxaad moodaa in dagaalku uu cirka isku sii shareeray samada inuu galay labada nin ee fanaaniinta ee da'da yar colaad u dhaxaysay in muddaha oo isku weedaarsanay social media heeso la isku caayo haddana muxuu soo saaray Ilka Case Qays aanuuga dadku waa ay dagaalamaan fanaaniinta waana ay heshiiyaan laakiin haddaa aragtid aniga sida ila muuqata fanaan sii wada dagaalka oo wali dabka sii horunayo waxaad moodaa in laga raayay hase ahaatee sida ila muuqataba Ilka Case wuxuu ka xun yahay in saaxadda fanka uu la soo galo fanaan da'yar ah oo micnihii qaabkiisa uu heesaha u qaado oo kale u qaado miyuu diidayaa micnihii wiilkan dagaalkiisa maxaasidnimo ka tahay inuu suuqa ka saaro aan dhalay baan hay heestan baa ku jirta tii hore waxay 10 sano waxaan u soo halgamay wax noocaasa wali muu dhalan cid bedel lahayd marka ma fahmin aanu Ilka Case waxa uu u dan leeyahay hase ahaatee ma ahayn fanaaniinta inkastoo horta lagu yaqaanay fanaaniinta in isxasdaan haddaad maqashid fanaan xaasid ma waa been fanaaniintu way isxasdaan waxayna isku xasdaan in uu saaxadda fanka la soo galo qof iyaga la mid ah oo waxa ay eegayaan in qofkan fanka ku soo biiray talow yuu suuqa ka saari doonaa dad badan buu suuqa ka saari doonaa waa xaqiiqdii Sharma Boy waa wiil yar oo talent leh oo la soo baxay haybad fan oo banaanka isu soo dhigay marka ma ahan Ilka Case Qays inuu dagaalkan sii fogeeyo ama uu cagta u saar wiilka yarka ah hadda sida muuqata Sharma Boy isaga heesiida hadda soo qaaday waa ma ahayn wax macnii Ilka ku saabsan dagaal ah laakiin kani wuxuu ku taagan yahay booski marka yaa laga badiyay baa la soo oran karaa labada yaa laga badiyay dabcan waxay la tahay qofka caytamaya oo wuxuu ku hadlay bal ila dhageysta Ilka Case waa nin weyn waa u dhali karaa Sharma Boy وجاي واسو قبورها بركة الكعب تدمر كارم اللحظي كتبها حل جيل الجوكا وبالله بأركا عني عربانا هاي كينج كونج المبراتي سرسي ديلي أفتو ديقلي أفتو دبلر دم على شيلانا نفتي هوري اسوا إل صار مكتبا ركز كعلمية مكو بركة باش waxaan tala mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad u soo jeedinayaa da'yarta kale ee ku dhex jirta fanka inay nimanka isu keenaan oo ay heshiisiyaan wuxuu waa fan awalba uusan qiimo lahayn oo de wax bahalkiya micna sida u weyn ma ahayn in marka la isku colaadiyo oo la isku garab riixo oo micnihii hebel baa suuqa ka saaraya hebel baa suuq qofka fanaanka hadduu fanaan kale kusoo biraa soo dhaweeyo oo hambaliyeeyo laakiin ma ahan in laga muujiyo colaad iyo isriix dabcan waa dad baa shidaya oo hurunaya dabkan meel walba dadku naar afuuf waa jooga waa naar afuufka la dhaho dad baa afuufaya oo hoos ka shidaya dabka وجاي واسو قبورها بركة الكعب تدمر كارم اللحظي warnimanka isu keena nimanka oo heshiisiya oo dagaalka joojiya dhaha ma ahan inoo way sii yeelan maayo labadu waa ku qiimo beelayaan haddii dagaalkaas u sii wadaan oo isaga sii jiraan wax micnaa oo yeelanayaan ma lahan hankoodii iyo fanaanimadoodii iyo wixii dhan baa ku lumaysa oo meesha ka baxaysa marka waxaan halkan u marinayaa inay nimanka heshiiyaan fadlan fiidiyogan inta daawatay soo gaadha sii share garay لاج iyo comment ana kala baqayna channelka subscribe-ka waa Shubaal Media oo idin la kulanti dama oo xiiso leh wassalaamu calaykum